wasiirka khayraadka iyo biyaha Soomaaliland Xuseen Cabdulle Axmed waxa markii ugu horeysay uu sheegay inuu soo dhaweynayo wadahadal kala sheegay inuu dhaxmarayo xukuumadda Soomaaliland iyo siyaasiga Ali Khaliif Galeer sidaas waxa uu ku sheegay wareysi kooban oo siiyay TV-ga qaranka Soomaaliland waxa uu tilmaamay in Soomaaliland iyo xukuumadeedu ay tixgelinayaan in siyaasi kasta oo aan aaminsaneyn mabda Soomaaliland ay soo dhaweeyaan lana hadlaan si ay u qanciyaan goonistaaga Soomaaliland waxa uu ku bilaabaya wasiirku sida tan waxa la sheegayaa inay wada hadallo u bilaabmeen siyaasiga weyn Ali Khaliif Galeer iyo xukuumadda Soomaaliland anigu warkaa waxaan oranayaa horta Ali Khaliif waa nin siyaasi waa nin weyn waa nin reer Soomaaliland in kastoo laga yaabo fikradaha in lagu kala duwanaado Soomaaliland saaxiibo badan buu ku leeyahay dad fara badan oo ay soo wada shaqeeyeen soo wada qabteen ayaa Soomaaliland maanta madax ka ama jooga anigu ka shakhsi ahaan waan soo dhaweynayaa Soomaaliland cid alla cidii tiraahda waxbaan waan wada hadal baynu wada yeelanaynaa wada hadlaynaa waa mid meesha furan waana la soo dhaweynayaa waxbana kuma jiraan hadii qof intuu ku yimaado ku yiraahdo waxa saa jiraan ka wada hadallo waa mid furan waa mid loo baahan yahay